بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ودرسي سيدي لباطنات كم إذا دروست كتابك شرح العمدة في الأحكام عاوة وأي تاريخ تاي سقالي تبنكي بشهر ربيع الأول كون 447 oo ku beegan 12kii bishii sagaalaad 2025 waxaynu bilaabi doonaa insha Allah azza wa jalla kitaabun nikah. waxaynu soo dhameynay kitaabul buyuu' iyo masaa'isha iibka iyo bay'a iyo shiraaga iyo wixii la halmaala. hal su'aal oo ku saabsan buyuucaadka ama buyuucda mucaasirka ah oo waliba ka mid ah waxyaalaha hadda la isticmaalo meherado badan laga yaabo inay ku shaqaystaan. meheradu waxay iibinaysaa tusaale ahaan badeecadaas markaad iibsato waxaad helaysaa jaa'isad ama hadiyad. tusaale ahaan waxa lagu odhanayaa qofkii moobil iibsada wuxuu helayaa hadiyad ama wuxuu helayaa jaa'iso. haddii waxa weeyaan caanaboore aad iibsato waxaa lagu raacinayaa waad helaysaa hadiyad. xukunkeedu muxuu noqonayaa? laba qaybood baa loo qaybinayaa. qaybta koobaad, haddii hadiyaddani ay ka mid tahay qofku wuxuu iibsaday oo lagugu odhanayo waxaa lagaa iibinayaa moobil iyo hadiyad kale ee intaa isku wada siiso, ama waxaa lagaa iibinayaa saacad iyo hadiyad kale ee tusaalahaan $50 isku wada siiso oo hadiyaddu ay ku jirto waxa qofku uu iibsanayo. haddii hadiyadda meesha laga saarana qiimuhu uu hoos u dhacayo waxay noqonaysaa qarar baa ku sugan iyo jahaalo waxaan bannaanayn bay markaa noqonaysaa. oo iibkii markaa wuxuu u qaybsamay wax la garanayo iyo waxaan la garanayn. iibkuna wuxuu ku jira waxyaalaha khatarta ah, عقود المخاطرة، عقود خطرت شرعي وتحقلي بكجرة. ولأجل هذا شرعي وحقسي وحلا إلى هذا خيار المجلس إن أتكلم بنكر طبعا أو مهرد مركا تكتئ أدو يبسته أنت مهرد أتشوكته أتفكرته هدي يكون نقوم ويدو شيء أتكلم طبعا شرعي وحقسي خيار المجلس بالله إلى هذا أنت مهرد أنا تكبحنا هذا إسكاله سببت محيطها لأن هذا عقد مخاطرة خطر بكسوغا. sharciguna aad buu ugu dadaalay wixii xoolaha ku saabsan, lacagaha dadka wixii ku saabsan, qofku xoolaha uu bixinayo waxa uu ku bixinayo inay noqoto wax qofku uu hubo 100%. marka inaad tiraahdo shay waxaan ka iibiyay aad garanayso iyo waxaanad garanayninba, wax muuqda iyo wax qarsoon oo shaygiina aan lagu sheegin, ama waxaan ka iibiyay moobil iyo hadiyad, ama waxaan ka iibiyay caano iyo hadiyad, oo hadiyaddu ay ka mid tahay waxa qofku uu iibsanayo wax majhuul ah ayaa qofkaas uu iibsanaya waxaan bannaanayn. waa qodob. suura labaad iyaduna culimadu weydiideen raxmatullaahi calayhim waxayna iyaduna ma bannaana. waa suuradda haddii qofku waxaan uu iibsanayo aanu isagu doonayninba ee wuxuu u doonaya ay tahay hadiyadda la yidhi hadiyad baa raacsan. marka shaygan marka qofku uu doonayo inuu iibsado haddii aanay isaga ka ahaynba daacadnimo oo shaygan isagu aanu tusaale ahaan madal maqsuud iyo ujeeddo qofka aanu ahayn, qofkii baahi aanay u qabin oo baahi qofka uu waxa shaygan u haya aanay jirin ay tahay inuu si hadiyadda uu helo hadda, taasina waxay noqonaysaa min baabi idaacati almaal oo qofkii xoolihii ku loo farayo iska wax weeya dayacayo. halka suurada bannaan waa qof tusaale ahaan meherad leh, meheradiisa wuxuu yidhi qof kasta oo wax iga gataa hadiyad yar baan u raacinaya, hadiyadda isagaa bixinaya. shayga aad iibsanayso ma ka mid aha, waa shay un aad uga jeedo silcadaada iyo badeecadaadu inay ku socoto, meheradaaduna magac iyo sumcad ay ku yeelato. laakiin shay qofka tusaale ahaan lacagta lagu qaalisiinayo la odhanayo shaygaa markaa dee hadiyaddu ay kula socotona waa sidaas, markaanay hadiyaddu aanay la soconno waa sidan ma aha. ee waa ixsaan iyo samafal ninka meheradda iskale isagu doonayo inuu qofka ugu deeqo, taas iyadu qofka waa u bannaanta. taas iyadu waa iska jaa'iso, waa bannaan tahay mar haddii shaygaasi aanu ahayn wax ka mida caqadka laftigiisii, haddii aanu ka mid ahayn wax ka baxsan uu yahay oo ka madax bannaan. culimada qaarkood sida sheekh ibn Uthaymin raxmatullaahi calayhi iyo shaykhuna sheekh Moxamed al-Mukhtaar Shinqiiti xafidahum Allah
waxay ku daraan qodob ku saabsan waa haddii aanay taasi keenaynin suuqu inuu dhibaatoodo suuqu sheekhu waa muhiim haddii adigu aad faa'iidayso unoo suuqii kale laakiin iyo meheradihii kaleo dhan dadku ay ka soo wada cararayaan oo adigu lagu imanayo xaaladda noocaas waxaa dhacaya laa darara walaa diraar oo qofku dadka kale muslimiinta inuu dhibaateeyo ma aha inaad naftaadu keliya aad ka fikirto ma aha maslaxadaadu keliya inaad ka fikirto ma aha danta kale ee muslimiinta iyo iibabkoodu laftigoodu dadku waxay ku macaashayaan qofku inuu ka fikiraa waxaad samaynaysaana waa inaanay noqon wax dadka kale kicinaya oo keliga un adigu aad samaynayso waa inaanay noqon si waxaagu dee uu barakoobo dadka kale muslimiintuna iyaguna ay u ceheshaanoo dee qof kastaba uu dhargo kitaabu nikaaxi waa kitaabkii guurka iyo axaadiista waxa weeyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay ee ku saabsan nikaaxa ama guurka kitaabkan intiisa hore waxay ka koobantay 13 xadiid waa inta insha allahu tacaala aynu akhri doonno caawa bacdeen waxaa ku xiga hal baab oo ah baabu sadaaq oo baabka meherka iyo maxaa meher noqonaya isaga insha allahu tacaala habeen dambe ayaynu baabka sadaaqa iyo kitaabu talaaq iyo wixii kasii dambe isku qaadan doonaa insha allahu caza wajal عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بانه يري يا معشر الشباب دلن يروي من استطاع منكم الباءة فليتزوج قفك أود أمكرتئ الباءة ومؤنة النكاح ومصاريفتي إيو هوله إيو ديار قرأوكي قوركو أباهنا فليتزوج قفكاسي أقور سدو فإنه محايلي أغض للبصر قوركو إساقا وحويا لابس بدن أرقا وقفك أرقيسي إنو دور صونادو وأرقيسي قفك لابتو وحويا عوراتك كالدتك قفك أنو راعين وحا وناكسن أو دور وحا لابس بدن أرقا وقورك وأحسن للفرج فرجنا قوركو إساقا دور صوني بدن عفافكي يدور صوني دينا قوركو إساقا أيا كينا ومن لم يستطع فعليه بالصوم قفك آن كري كرين آن أودي كرين إن أقور سدو فعليه بالصوم قفك النبي قول عليه الصلاة والسلام صونك أوقادو فإنه محايا لي صونك له قفك وحويه وشاء ودفان بويه دفان كان وحلقا وضع قفك شاوديسي إنه خفيفته أن حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام waxaa ummadda si guud uu farayaa dhalinyartana si gaara nabigu u faraya calayhi salaatu wasalaam in la guursado oo dhalinyarta si gaara waxa loo sheegay waayo kalcaada sida caadadu ay ku dareertay way ka shahwo badan yihiin dadka kale maadaama ay ka awood badan yihiin oo ka karti badan yihiin way ka shahwo badan yihiin marka nabigu calayhi salaatu wasalaam dhalinyartu si gaara ula hadlay yaa macshara shabaab laakiin waxaa kaloo la mida odayaasha laftigoodu waa soo gelayaan haddii waxa weeye macnihii shaabka haddii laga helo meesha waa soo gelayaan marka odayaasha midda iyo labada iyo waxa weeyaan haya laftigoodu inay guurka badsadaan laftigooda nabigu waa ina faraya sala allahu calayh waalihi wasaxbihi wasallam guurku waa wax aad iyo aad runtii u cajiib ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nafta baahida nafta ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka yeelay haddana shay diiniya oo cibaado ah oo ilaahay lagu dhowaanayo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay faa'iidooyin aad iyo aad u tiro badan baa ku sugan guurka guurka macnihiisu kuma koobna un shahwo iyo shahwo la'aan guurka macnihiisu waa ka guda ballaadhan yahay qadaa'u shahwa laakiin macaanidiisa iyo faa'iidooyinka iyo midhaha laga helayo guurka ayaa waxaa ka mid ah qofka in shahwadiisa ay ka jabayso guurka waxaa ku sugan ummaddan caawa halkan aynu ku wada fadhinno iyo ummadda kale ee caalamka ku dhaqanba waxay ku tarmeen waa guur ee ay ku hadheen haddii kale dadku beri horey baabi'i lahaynba oo isirka ama waxa la yidhaahdo ibnu aadamku waxa uu ku tarmay ibnu aadam keliya maaha makhluuq oo dhan waxa uu ku tarmay waa guur waa nikaax waxaa kale oo ka mid a ujeeddooyinka guurka ee cajiibka ah waxaa ka mid a abtirsinkii xifdul ansaab markaad maanta abtirsanayso awow ka awow dee dadkaasoo dhan waxay isku wada dhaleen waa wada guur weeyaan marka qofka abtirsinkiisi in la garanayo oo reerka uu garo la garanayo cidda uu yahay la garanayo oo waxaad isu tihiin aad garanayso intaad isu jirtaan qofka aad garanayso oo waxay ka mid tahay faa'iidooyinka guurka waxaa kaloo ka mid a macaanida guurka ee la yaab kale
waxa la yiraahdo ulfa wal mawadda jacayl in ilaahay subxaanahu wa ta'ala labada qof ay iskuursada dhexdooda ilaahay u dhigayo oo qofka bani aadamku noloshan wuxuu u baahan yahay wehel buu u baahan yahay sida awgeed insaanka ama insiga wax laga keenay min al-unsi waa wehel qofku ama ibnu aadamku uma adkaysto cidlada sida awgeed qofku wuxuu u baahan yahay wehel buu u baahan yahay zawj lamaane lab ama dhadig gabadhi nin bay u baahan tahay ninkii wuxuu u baahan yahay gabadh hadhow ubad iyo reer bulsho mujtamac dhan ba hadhow halkaa laga noqonaya waxay ka mid tahay faa'iidooyinka guurka laga helo waxa waliba cajiib oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ku daray aayaadkiisa laba qof oo aan is aqoon oo aan aqoon iyo macrifo aanay ka dhaxaynin oo waxa weeyaan iyagu waaweyn isbartay oo haddana hadhow cid walba iska jeclaanaya oo cid walba isaga dhow oo isa sir og oo isla socda oo iska warhaya oo waxa weeyaan labada qof ee waxa weeyaan nolosha isugu dhow noqonaya hatta wax kale iska dhaafay waalidka iyo waxa weeyaan walaalada kaaga dhow ruuxa qofka aad guursanayso ama nin aan noqdo hadii wax weeyaan ay tahay gabadh cideen la hadlayna ama gabadh aan noqoto hadii cideen la hadlayna nin uu yahay marka wa min ayatihi bu ilaahi subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha labada qof way isu xasilayaan oo gabadhina ninkay ku xasilaysaa ninkina wuxuu ku xasilayaa gabadha zawjna nin iyo gabadh labadaba waa la yiraahdaa ja'ala lakum min anfusikum azwaajan nafyihiina ilaahay wuxuu idinka yeelay lamaanayaal aayadda yaan loo fasirin ja'ala lakum ragyahow waragow ilaahay wuxuu idin yeelay azwaajan dumar litaskunu ilayha aad ku xasishaan laa ya sheekh labadaba ja'ala lakum ilaahay nafyihiina wuxuu idinka yeelay azwaajan lamaanayaal oo ninkiina ilaahay wuxuu yeelay lamaana dumar dumarkiina ilaahay wuxuu yeelay lamaana wax way raga ama nina litaskunu ilayha si lamaanayaashaasi rag iyo dumarkuba ay isugu xasilaan marka mid walba ka kale wuxuu yahay sakan iyo xasilooni oo guriga iyo qoyska maanta dhismaya qof walba ka kale wuxuu yahay sakan iyo xasilooni buu yahay sida awgeed ba waxa la yiraahdaa xanuunada qaar kood waxa dawo ka ah guurka taasina wax dhaqaatiirtu hadda ay tilmaameen oo kaliya ma hatta culimadii hore الجويني رحمة الله عليه وحقوق نهاية المطلب ودراية المذهب أن العزبة قول لأنتو إني كمت من أسباب الجنون والدة وحيالا لغوة شو إني كمت وأيوحي كلين شركي مركا ما أنتو حوي شهودي وإلهي سبحانه وتعالى شركة وكو أبوري مركا احتقان ودعو احتقان الشهوة وشهودي شركة أي كو أرورتو أي كو بيرتو وإخراج كيدي أما سوساري دي هدو وحي كينيسا وحي وفضلو tusaalahan saa'id ama tusaalahan aan fiicnayno jirka ku jirta sida waxa weeyaan hadii waxyaalaha kale ka soo baxa jirka sida kaadida iyo waxyaalaha la midka hadii jirka ay ku raagaan ba ay dib u keenaan hada aydan minha tan waa la mid ولأجل هذا بقى إلهي سبحانه وتعالى شيء تذكر حسمه يعني من رحمته نحريس إلهي سبحانه وتعالى الاحتلام احتلامك ونحريس من الله عز وجل وقشن صار والشرك وحصو صار يا مني دي بيه وحويان تصالم قشن كأبا شرك إلهي كسو صار هي سر رباني أو وحويان طريق مشروع وبنان وقف كان وحويان حنون يدق مدة ما أنكو كينين جوركو لبضا قفا إسقبا ولا بقفا إسقما يستريا نينكا waxa lagu baahan mas'uuliyaadka khaarijiga guriga wax weeyaan mesela dabadiisa lagu baahan nafaqaadkii biilashii shaqooyinkii arrimaha noocaas gabadhana mas'uuliyaadkii daakhiliga ahaa ee guriga ayaa iyadana saaran haday tahay guriga iyo arrimihiisii iyo tarbiyadii ubadka iyo caruurta in la barbaariyo la koriyo labada qof waa laba qof oo isdhamaystiraya waa laba ruux oo takaamul isu ah oo isdhamaystiraya waajibaadkaas haddii qof kastaba waajibkiisa uu ka soo baxo oo ninkana mas'uuliyaadka saaran uu ka soo baxo gabadhuna mas'uuliyaadka saaran ay ka soo baxdo waxaa dhacaya bulsho caafimaad qabta oo tayaysan iyo ubad fiican oo wax weeyaan dhammaystiran oo tarbiyad iyo dhaqan fiican leh inay halkaa ay ka abuurmaan haddii laakiin labadaa mas'uuliyadood ee ilaahay ragga iyo dumarka rabbi uu kala saaray ay waxa weeyaan qof kasta waajibkiisa uu ka soo bixi waayo oo ninku mas'uuliyaadkii khaarijiga ahaa ee dibadda looga baahnaa uu ka soo bixi waayo sida biilashii iyo nafaqaadkii iyo wixii la mida gabadhuna ay ka soo bixi waydo mas'uuliyaadkii daakhiliga ahaa ee guriga iyo tarbiyadii iyo wixii la mida oo tusaale ahaan labaduba suuq ay u soo wada baxaan oo gabadhuna ay u soo foof tagto sida ninku u soo foof tago iyaduna waxay keenaysaa runtii mushkil aad iyo aad u badan oo dayac ba halkaa ka imanaya dayac aad iyo aad u badan ba halkaa ka imanaya taasina markaa waxay radin ku tahay dadka wax weeyaan uu ku iddicoonaya in dumarka guryaha laga soo saaro
gabadhi waxa weeyaan ninka ay la mid tahay suuqa ay timaado ay soo dhex gasho waxa weeyaan maxay ahayday meelaha marba ragga ay is iryadaan kullu hada waxa kamid wax sharcigeena khilaafsan diinteena khilaafsan dhaqankiisu banaan wanaagsanana khilaafsan mawduuca ku saabsan nikaaxa shahwada qofka ilaahay subxaanahu wa ta'ala isaga ku abuuray marka dambana ilaahay wuxuu ku sameeyay wada banaan oo wada cad oo leeyahay wadadaasi waa mashruuc waa banaanta iyo wada gurcan oo qaldan oo leeyahay wadada hadaad martana waa khalad waa dambi waa gaf wadada mashruuca ee banaan ee shahwada lagu gudanaya waxay tahay nikaax waa guur waana ka nabiga kaleey salaatu wasalaam ina faraya man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj qur'aankuna aw ina faraya ilaahay wuri wa ankihul ayama minkum as-salihin min ibadikum wa imaikum alla guursado wadadaas waa wadada waa tariiqa mashruuca guurkaasina markasta oo uu bato markasta oo guurku uu faafo waa markasta oo karaamada iyo sharafta iyo fadiilada iyo wanaaga iyo asturnaanta ay wax weyn ay faafayso markasta oo guurku uu yaraadana oo dadku ay isguursan waayaan oo guurka laga daaho oo laga habsaamo oo markasta oo loo filaan ay u tahay halkaas in xumaantii iyo macaasidii iyo dambigii iyo arrimaha noocaas ay dhashaan waayo seenu tilmaanay waxani waa xaajatun fitriya waa xaajo ama waa baaho ama waa baahi fitriya qofka ku abuuran hadda ma hubo sixadiisa iyo siduu saxiix u yahay laakiin waxay soo maray athar can Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ardaa in Umar ibn Khattab uu la kulmay nin weyn oo aan guursan markaas wuxuu ku yiri wariyaa maxaad guursan weyday Umar wala garanay Umar radiyallahu anhu ardaa dhangad buu laan jiray dirratu Umar baa la oran jiray suuq la dhex wareegi jiray nin kasta oo yara arko midig bidix wixiisu ay wax ka qaldan yihiin shaambuug baa lagu dhufan jiray dirratu Umar baa loo yaqaan waa kuwi bacdu salaf laha ma ahwajana ila dirrati Umar Allah maxaan u baahi badan casrigan hadii la heli lahaa dhangadii Umar marka qof kasta oo wax ka yarasi yihiin dhangadaas sixi jirtay istaw wadadaas fiican loo qabsan jiray Umar radiyallahu anhu ardaa nin weyn ayaa wax weeyaan ula kulmay oo aan guursan maxaad guursan weyday caafimaad qabta haa caafimaad qabta maxaad guursan weyday markaas wuxuu soo rogay in aan yani qof weyn oo caafimaad qabo oo aan guursan illa an yakuna faqiran inuu qof faqiir oo baahan uu noqdo mooyaane laakiin in fitrada iyo baahada qofku uu baahan yahay ya caafimaadkuba uu keensanayo qofku inuu wax weeyaan uu guursado casrigan aynu hadda noolnahay oo damar walba fitanku ay iska jiraan waxa runtii waa casri la oran karo qofka in guurka uu sii degdego waa waxyaalaha runtii loo sii baahi badan yahay oo dhalinyartu waxa weeyaan marka ugu horeysa ee fursadda ama jaanisku uu soo maray wax isugu yara beegmaan in jaaniska iyo fursadda ay ka faa'iideystaan inama iyo hablaba waxaad arkaysaa inamada qaarkood oo odhanaya waxa weeyaan wallaahi dee waalidku waaba igu qasbay wuxuu leeyahay maxaad u guursan weydo anna waxaan leeyahay may horta aan dib isaga dhigo jaamacadda iyo wax dhammeeyo oo waxba inankaaba la qaatay hablaha aad waxa ugu badan inay aad guurka ay uga warwareegaan oo inanta ay tiraahdo wax baan baranayaa shaqaan waxa weeyaa marka waraysan aan shaqaysto aan isku filnaado kada hawlo badan noocaas waxaana jira dicaayaad fara badan oo runtii suuqa ku jira oo guurka in wax weeyaan wax weyn guurku inaanu ahayn oo guurka qiimihiisu aanu wax saa u sii ridan aanu ahayn dad badan baa runtii fikradda noocaas aaminsan habeen hore waxa ka soo wareegtay xalay nin wax weeyaan kamid ah ragga yaryar nin yarba ma hayo nin weyna baan ku maxaad u guursan weydo markaas uu wallahi de guurku de soo khiyaar ma aha oo qofku wax weyn kana wax weyn inaanu ahayn guurku khiyaar baa de qofku leeyahay oo marka hadduu qofku guursadana waa khayraad aan guursanna wax weeyaan marka de sidaas oo kale qofku inuu hadla wax sharciya ma aha wax diini ma aha falsafo isoo qaatay rag wax weeyaan falsafada hiblaaye waxa ku tartaan ku qabriga markaad gasho falsafada hiblaaye saa taar waxa ku tarto guurka waxa laga helaa kaliya un ma aha qofku shahwadiisa inuu guto in ubad wanaagsan ay ka haraan in wax weeyaan ummadina maxmed qofku u badiyo laajil hada munaasabaadka qaarkood waxaan ka yiri qofka guursanaya 6 niyo oo wanaagsan ayuu u guursadaa niyada koobaad amarka Ilaahay in la farsoomo subhanahu wa ta'ala aayadkan akhrinay niyada labaad amarka rasuulka kaleey salaatu wasalaam in la farsoomo sida xadiista hadaynu marayno niyada saddexaad dhowrsooni iyo cafaaf qofku inuu ka helo isagu naftiisa niyada afraad ee wanaagsan tarafka kale hadaad nin tahay xaaskaaga hadii gabadh ay tahay ciday maqlaysana ninkaaga inaad u sababto dhowrsooni iyo cafaaf icfaafu taraf al-aakhir ayaa la yiraahdaa waniyaduna wanaagsan waa cibaado amalkaaga ka dhigaysa cibaado Ilaahay aad ugu dhawaato niyada shanaad takfiiru ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam ummadda nabi Muhammad in la farabadiyo oo ummadii xagga tira ahaan ay badato niyada lixaad
كم دنيوينك جورك وكنا غن عبادة الولد الصالح المو ناكسن إن الله سبحانه وتعالى وكسيه أو موحد وإلهي سبحانه وتعالى كل عابدة وإلهي سبحانه وتعالى أتكذا وحق إلهي يقانا ودينت إلهي أهيلي وقرقارة إن الله سبحانه وتعالى وكو أرزاقه نعم كوناكسن بكمت لحدا نيكستا جورك وحكا دغيسا عبادة إلهي سبحانه وتعالى هذا قد وانيس runtii fitanka badan ee casrigan hadda jira waxaa ka mid ah su'aalaha ugu badan ee maanta dadka qaarkood ay isweydiinayaan shahwada qofka Ilaahay subhanahu wa ta'ala isaga ku abuuray runtii waxaana la yaabaa inaan aad looga hadlin mawduuca noocaas ah waxyaalo badan oo ama ay dhalinyartu u baahan tahay ama su'aalo badan ay isweydiinaysa baa jira haddana aanay helin cid uga jawaabta oo maadaama mawduucdan ay tahay mawduuc xasaas ah imika waxa jira tusaalahan wadamada carabta waxyaalaha qaarkood lagu qabto waxa kamid ah waa tusaale ama بعض ahli cilmi ay qabtaan waxay ku magacaabaan الثقافة الجنسية imika hada buugan waxa la yiraahdaa buuga fadiila wuxuu ka kooban yahay 300 oo safxadood wax ku dhow fadiila baa la yiraahdaa fadiila waa maxay waa karaamo waa sharaf buugaas wuxuu ka hadlayaa وثيقة عملية في متطلبات التربية الجنسية waxaa loo yaqaan at-tarbiyatu al-jinsiyya yani shahwada iyo qofku sida uu la macaamilaya laga soo bilaabo ilmaha yar laga soo bilaabo marka uu aqli yeesho mumayis uu noqdo maxaa u munaasib looga sheekeyn karaa markuu sii weynaado dugsiga hoose marka laga bilaabo ilaa al-marhala al-jaamiciyya ilaa jaamacadda markuu dhameynayo baad bid tafsiil waxa ku qoran wixii laga hadli lahaa marxaladda uu ku jiro dugsiga hoose maxaa loo sheegi karaa markuu dugsiga dhexe galo maxaa laga hadli karaa markuu dugsiga sare galo maxaa laga hadli karaa صفحة 25 waxaa ku qoran majaalaadka ay tahay in wax weeyaan barnaamijkan shahwada iyo arrimaha la halmaala ay tahay in wax weeyaan laga warramo majaalaadkaas wuxuu isugu jiraa mid sharciya الثقافة الجنسية العلاقات xiriirka dadku wax weeyaan ay sameyn karaan waa maxay idaaratu الذات qofku daatadiisa qaabku wax weeyaan uu idaareyn karo ama uu maamuli karo القيم والاتجاهات halka hadda laga bilaabo wuxuu sheegayaa maraaxisha ubadku ay maraan ilmaha yar inta aanu wax dhigan maxaa loo sheegi karaa marxaladda dugsiga hoose markuu ku jiro maxaa loo sheegi karaa dugsiga dhexe maxaa loo sheegi karaa dugsiga sare maxaa loo sheegi karaa marxaladda jaamacadda uu ku jiro maxaa loo sheegi karaa tusaale yani mesela marxaladda ilmaha yar aanu waxba dhigan diraasaad aanu gelin maxaa loo sheegi karaa aadaabul istidaan guriga marka uu galayo in uu gargaraaco ilmihi yara guriga taf aanu iska soo oran waalidkii tusaalaan qolkii hurdada oo kale iyo wixii la mida aadaabul istidaan in wax way la baro marxaladda ibtidaa'iga ama dugsiga hoose marka uu galo istidaankii baa la barayaa maryaha uu gashanayo iyo wax weeyaan mesela tusaalaan caruurtii ilmihi yara inan ku doona noqdo ayaa loo sheegayaa asturaadu waxay tahay qofku inuu asturo awradiisa uu qariyo uu asturo qiimaha ay leedahay baa looga warramayaa aadaabun nawm hurdadii iyo wax weeyaan iyo aadaabta ay leedahay hurdadu مفهوم البلوغ قان قارنما ومحي الحيض ومحي عادة أما ديق عادة هبلها كيمادة كل هذا ومرحلة ابتدائية أما دوكسيغا هوسة أي قفك الله قرمي دوكسيغا دحي الإيمان التقوى الله كبقى إلهي سبحانه وتعالى إيمانك مفهوم البلوغ مثلا قان قارنما دي أحكام تيدي وسنن الفطرة يغسل يمير الشد يوحي لمن مرحلة سكنتريغا أوغالو وحلقة الورمية عبسد إلهي سبحانه وتعالى خشية الله المراقبة غض البصر إن أرجس يحوي يقفك ودورته مثلا الأحكام المتعلقة بالسلوك الجنسي مرحلة جامعة وقالوا يدنا أحكام أنت كسي بدنا صدح بقول أو صفحات بوجا واحد طبعاً مركز المربي الشيخ محمد عبد الله الدويش رياض بكويا ولا مركز كاسي هذا المركز رمتي بوجا هذا وحنا هي مدة هذا الله بس سنة لكن كورن كيسو يبلشون إن الله صبرنا واحد بهانت هاي فقه بهانت oo dadkeenu wali mustawaha yani in arrimo noocaas laga hadlo oo si caam ah waliba looga hadlo oo dadku wax weeyaan may gaarin mustawa noocaas dadkeenu wali uma bisla laakiin waa qodob muhiim ah oo ay tahay tusaalahan macallimiinta iyo maamulayaasha iskuulada iyo macaahidda iyo arrimaha noocaas inay ka warhayaan buuga noocana al-fadiila ayaa la yiraahdaa markiis al-murabbi oo riyaad ku yaala sheekh Abdullah Duwaysh waxaan u jeedaa sheekh Maxamed ibn Abdullah Duwaysh xafidahullah doctorkaas ayaa markiiska haysta isagaan u tagnay markiiska kan iyo buuga kale ka soo qaatay oo barnaamijkan ku saabsan taa hadda waxa si raacaya
arday yar baad hadda arkaysaa oo lagu leeyahay tusaalahaan maalan waxay daawanayaan filimaan ama waxyaalaha noocaasaba marka qaarkood ay ku dhacayaan waa shahwadiiba waxay la gashay meel qaldan in markaa mawduuca noocaasa ardayda yarraa wacyigelin loo siiyo oo wax weeye laga waaniyo oo khatarta ay leedahay wax weeye looga warramo oo filimaanta ay daawanayaan dhibta hadhow ay ku leedahay looga warramo yani maalan ما دوني موضوع أنا كوسي في بعض لكن لما قضب الأفلام الإباحية فيلمان طلع هذا لما خطرات أو آدي رنتي دين شرقة هي كوسي في سين خطرت كوبات هرت وحلا إلى هذا الإدمان وتتكا وحدا وضع أما قفكو هدو غير أي شو أما يانو يالن أما أجورسد أما يانو جورسن هدو وحوس كقوان كرماه وإدمان يعني waxay la mid tahay bay ku leeyihiin dadka culimada ka hadlay si mawduucan caawa uga hadlo waxbaan ka soo diyaariyey waxaan soo daawaday maalan rag ahlu cilmi oo barnaamijka ka sheekeynaya dowraad iyo tababarro ka jeedinaya waxay ku leeyihiin idmaanka filimaanta qofku inuu idmaan uu qofku joogteeyaa waxay la mid tahay sida mukhadiraadka oo kale sida mukhadirka iyo waxyaalaha mukhadiraadka qofku aanu isaga jari karin ayaa daawashada waxyaalaha noocaas qofku hadduu la qabsadana qofku aanu isaga jari karin wax kasta hadday dhacaan waxay ku leeyihiin waxay u baahan tahay dhowr bilood qofku inuu ka bogsado bilay u baahantay inuu qofku ka caafimaado uu ka bogsado waa qodob runtii aad iyo aad khatar u ah qodobka labaad ee sin cajiibka ah filimaanta la daawanaya ee muxaramka marka laga imaado inay xaaraan tahay marka laga imaado inay qalbi qallayl ay leedahay marka laga imaado waxbarashadii qofka inay hoos u dhacayso marka laga imaado adraar aad iyo aad u tiro badan bay leedahay mafhuumu zawaaj ama guurka ama jinsiga wax la yidhaahdo fahan qaldan ayaa qofku wax weeyaan uu ka qabsanaya dadka filmaanta noocaasa laga duubaa waa dad wax weeyaan waxaan waxay u soo dhigayaan waa business waxay ka raadinayaan waa ganacsi malaayiin doolaraad bay ka helaan malaayiin doolar ah baa laga sameeyaa halka filin ee maanta wax weeyaan la soo bandhigo liajli hada waxay keentaa inay isticmaalaan mukhadiraad waxay isticmaalayaan waxyaalo mukhadir ah wax weeyaan jirkooda waxay u dhisayaan si wax weeyaan la yaab leh marka qofkii فهم قلدن بو كقبسنaya marka guurki hadhow xisoorinaya hadda hadhow cid guursato waa in waxa hadhow qofka aad ka heshaa waa in waxyaalaha noocaas oo kale ay tasawuraadkan hadda uu ka arkayo waxyaalaha noocana ayuu ku dhisaya hadhow mustaqbalka noloshiis taas marka waxay keentaa khilaafaad badan burbur badan guryo badan oo baaba'ay liajli in ninku waxan uu daawado waxay keentay in hadhow xaaskiisii ama gurigiisii markuu ka waayay waxyaalaha qaarkood uu soo daawaday waxay keenaysaa in hadhow halka burbur marka uu ka imaado oo yiraahdo wax weey gabadhii mustaqbalkan ku tashanayay ma tiid ama qofkii mustaqbalkan ku fikirayay ma tiid waakada aydan cagsiga waxay ka timaadaa dumarka daawashada aad u badan tahay rag iyo dumarba marka ala kulli xaal maan doon mawduuca inaan saa u sii galo laakiin waa mawduuc runtii aad u baahan wacyigelin badan in runtii wax weey laga siiyo dhalinyarta waliba da'da yar alla ka baqa ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo khashiyadiisana aad iyo aad runtii loo badiyo duruusaha la halmaala arrimaha noocaasana hadda kitaabka hadaynu dhigayna addaa dawaa asbaabaha keenay in waa 3-4 su'aalood hal usbuuc is wada waafaqay oo wax weeyaan rag maalan shabaab ah oo dhalinyaro ah waxyaalaha noocaas dhowr jeer igu soo celceliyay waxay keentay kitaabka inuu bilowno addaa dawaa ibn qayyim rahmatullahi alayh asalka kitaabkana sheekhu wuxuu qoray qof isna cishqi ama jacayl uu ku dhacay isna xun oo qaldan ayaa isna keenay kitaabka asalkiisa in la qoro marka arrimaha noocaas runtii wacyi gelin badan laga sameeyo wax aad iyo aad runtii u muhiim ah laakiin hadda intaasaynu ku dhaafaynaa marka guurku waa muhiim ana wax weeyaan la isku dayo guurkaas sidii loo fududeyn lahaa waliba si gaar ah xagga hablaha maadaama habluhu inta badan iyaga xishoodku uu ku badan yahay iyagu guurka iyo waxyaalaha noocaas iyagu sida inanku wax u raadsanaya iyagu aan waxba u raadsanaynin ilaahay subxaanahu wa tacaala habluhu waa ka yaabaan furaska guurkana ka faa'iidaystaan waalidka laftigiisuna guurka afudaydiyo ilmaha hadduu ku imaado kule guur baan diyaar u ahay aku odhan laa anta sabi ilma yara tifli carurata ween maada gaadhiba hadda wuxuu saa ula hadlaya wax laga yaabaa nin 18 jira ama 19 jira ama 20 ayuu ku leeyahay carruurbaad carruura ninka 20 jirka 15 kadib gursan lahaa waxbuu dhaleeyaa abiina wuxuu ku leeyahay 18 jir isagoo 19 wuxuu ku leeyahay carruurbaad marka waa waxyaalaha keenaya tasarrufaadka qaldan iyo waxyaalaha hadda aynu sheeganayno ka warramaynay oo qofkii yaraw isku dayo shahwadiisii inuu markaa meel qaldan hadhow uu la maro oo wax weeyaan laana wixii waa wax dhibaya oo jirkiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku abuuray haddii guurka markaa la kari waayo waa in soonka la badsadaa soonkaasi waxaa nabigu ku fasiray calayhi salaatu wasalaam inuu yahay wijaa ama qofka uu yahay dhufaan oo shahwadii qofka uu khafiifinayo soonka saamaynta lena waa soonkaas keenaya inuu qofku cuntadii iyo cabitaankii qofku uu yareeyo taasi markaa ay keento in
يعني مثلا ديجي iyo مثلا xididadii dhiigu ay ku dhacdo diiqul majra wax la yiraahdo oo socodkoodii wax way u yaraado laakiin marka qofku wax cuna ee qofka dhiigiisu aad u shaqeeyo ee qofka dhiigiisu aad u socdo waad keenaysaa shahwadiisu qofka inay ama dareemihiisu qofka inay kacaan ama shahwadiisu qofka dadna taas marka hadda qofka ay keeni karto waxyaala aan banaanayn Allah azza wa jalla mu'miniinta in badan quraanka wuxuu ku sifeeyaa walladina hum li furujihim xaafiduun wa dadka farjiyadooda ka adag ila shanaya illa ala azwajihim xaasaskooda mooyaane aw ma malakat aymanuhum ama wixii midigyadoodu ay hantiyaan mooyaan waa adoomadii waa markay adoomadu jireen weeyaan marka zawaajku ama guurku runtii waa fadiila walaa ya'ti illa bi khayr ma yuhkal lama kana عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كم إذا صحابة النبي سألوا وحي ويديين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حاسسك النبي عن عمله في السر نبي محون سمية كوريك ملكو كليجي تشوغو مركاسات من الله ورما النبي عليه الصلاة والسلام قال عبادات كيسي وحي لمدة فقال بعضهم صحابة قار وحي لهذين لا تزوجوا النساء ولي أنه قرسن ماي وقال بعضهم قارن وحي لهذين لا أكل اللحم أنقو hilibka weliga cuni maayo waxa hilib la yiraahdo iska ilaalinaya wuxuu doonayaa inuu xaq min naxiyat al-ibada oo kale in ajar looga qoro waqala bacdhum qarna waxay yiraahdeen la anaamu ala firaash weliga ninkayga nin gogol ku seexanaya ma ihi nabigu kaleey salaatu wasalaam hawshii buu maqla fahamid allah ilaahi buu mahdi wa athna alayhi amantu ku cilcili الثناء هو تكرار الحمد amanti buu ku cilcili وقال nabigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam ma balu aqwamin wa maxay xaaladda rag qaaluu kada wa kada rag sidaa iyo sidaa yidhi maxay doonayaan ama xaalkoodu waa maxay laakinnii aniga miyaa haddaan ahay rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam usallii wa anaamu habeenkii wax ka midana waan tukadaa wax ka midana habeenkii waan seexdaa wa asuumu wa uftiru maalmaha qaarna waan soomaa maalmaha qaarna waan aafuraa waxbaan iska cunaa wa atasawaju nnisaa'a dumarkana waan guursadaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam فمن رغب عن سنتي سنة إذا قفك إسكنعة يا طريقة إذا يهدي جيجا يوحويان يرقاب كيجا قفك النعة وح كفي عن مود إنه هيستو فليس مني ديرو إجي هي قفكاس شقيكم لها حديث كان وحوت المام يدور صحابي وصحابة النبي كمد عليه الصلاة والسلام سيدا علي بن أبي طالب رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عثمان بن مضعون رضي الله عنه صدح ذان أي كمديهين أيا وحي ما دنقول النبي عليه الصلاة والسلام كاسا وحنا بل هذا عبادة النبي بالقابك وعبادته بل هذا إنه فلنقين وهذا إنه أجنو مركي وحي ما دين قريه النبي عليه الصلاة والسلام كاسا وحي ويدين عبادة النبي وعبادته مركي النبي قريه وشوقه مركاسا طبعا عبادتي مركي أركان أيا وحي هذا النبي محمد إلهي دبي سهر أكيد دم إلهي ووضعف إنه لكن قاب كمنهم مركا وين إنه دلالنا وعبادة النبي متكسي بدن أينو إسكت هنا إنه سمينه saxaabadu baa iskala qaybiyeen nin wuxuu yiri anigu weliga hilib cuni maayo isagoo ay ka tahay cibaadahan oo ilaahay ugu dhawaanayo ninna wuxuu yiri anigu weligay ninka firaash ama gogol dhiganaya ku seexanaya maayo ninna wuxuu yiri anigu weligay gursan maayo nabiga kaleey salaatu wasalaam hawshan noocaas waa diiday waana khudbadii nabiga kaleey salaatu wasalaam waxaanu tilmaamay waa maxay baa nabigu yiri rag sida iyo sida iyo sida ku hadlo arintaas inay qalad tahay oo ay gaf tahay baa nabiga kaleey salaatu wasalaam uu sheegay waxa ku sugan xadiidkan oo lagala baxayaa in waxyaalaha mubaaxaadka qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala u baneeyay haddii cibaado ahaan qofku uu uga tago inay noqonayso bidco oo waddadii nabiga inay khilaafsantahay calayhi salaatu wasalaam sida hurdada hadduu qofku wax weeyaan cibaado ahaan qofka uga tago ama hilibka cunistiisa qofku cibaado ahaan uga tago haddii qofku isagu ku xanuunsanayo meeshiis dadka qaar baa hilibka ama ku xanuusta ama xasaasiyad kule ama waxa cuntooyinka qaarkood ama wahaakada taasi waa shay kale laakiin cibaado ahaan baan uga tegayaa hilib taasi wax mashruuca ama diinkeena wax ku jira ma aha waxaa kaloo ku sugan xadiidka cibaadada sida sharcigeenu uu isugu dheeli tiray baahida ama waxaad tiraahdaa cibaadaadka qofku ilaahay u samaynayo iyo baahida qofka jidhkiisu ay u baahantay ama baahida qofka jidhkiisu u baahan yahay oo cuntadii waxaa la yidhi iska cun waxaa la yidhi wax kastoo ilaahay kuu baneeyey cun waxaa la yidhi hilibkii cun waxaa la yidhi guurso yacni noloshii qofku inuu ka qayb qaato oo waxa weeye noloshii qofku ku raaxaysto sida ilaahay u baneeyey subxaana wa tacaala isagoo qofku mar walba ilaalinaya cibaadadii ilaahay subxaana wa tacala ilahay u caabudayo maa baalu aqwaamin waxaa ku sugan sayn hore usoo qaadanay dariiqada nebigu calayhi salaatu wasalaam haddii saxaabadiisu ay qaldamaan uu nebigu u siixi jiray oo nebigu calayhi salaatu wasalaam inaanu magacaabi jirin sida hadigiisa ugu badan nebiga uu ahaa ee uu odhan jiray nebigu maa baalu aqwaamin
xadiidka ku jira Abu Daawud kuna Abu Cadeynayaaba oo nabigu hadduu wax dhibsado wuxuu oran jiray ma baalu aqwaaman waa maxay qolo waxa ku hadlo وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال وحول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام وحو أديدي على عثمان بن مضعون صحابي وحو أديدي التبطل إن وحويان وكجو جورك التبطل وإن جورك لا جو وقف كل هذا حنوجو يا عباده ولو أذن له هدو النبي أف الصح لها عليه الصلاة والسلام صحابي قاس عثمان بن مضعون هدو النبي أف الصح لها عليه الصلاة والسلام إن أنو جورسا لاختصينا وأنو إسلفان لهم بقى وحويان يعني وحنو سكتهم لهين حينيها لكن النبي عليه الصلاة والسلام وما فصحين وحنو تلمام يعرفان صحاهين أين يتاعي عثمان بن مضعون نوع قجري صدح ديننا صحابي هدا إنه شيء عبادة النبي صور يستي عليه الصلاة والسلام قجري وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان مركا وحيالها وتلمامو ابن الجوزي رحمة الله عليه في سيد الخاطر وحاكم ذا وحردتك قاركود وموجستا زهدك iyo cibaadaadka iyo in wax weeyaan tusaalaan dad ilaahay ku xiran ay yihiin waxa dhaca mubaahaadka qaarkood inay ka tagaan baa waxay u noqotaa shahwo mas'ala aad u daqiiqa weeyaan yani inaga hadda waxaan naqaanaa ficilka qofku waxa uu sameeyo inuu yahay shahwo tusaale midna qofku inuu maanta cunto u cuno qofku wuu xiisoonaya hilibka maanta qofku inuu cuno waa wax loo xiisoonayo wuxuu dadka qaarkood waxay keentaa si waxa weeyaan uu helo magac iyo sumcad oo dadka qaarkood ama bacdu as-suufiya an noqoto suufiyada qaarkood ama dadka qaarkood asxaabu zuhdiga iyo waxyaalaha noocaas muujista in shahawaadka qaarkood uu ka taga tarkiga inay shahwa ay ugu jirto tigista uu ka tagayo si loogu amaano oo hilib hebel weligii hilib ma cunin hebel waa zaahid weeyaan ninkaasi oo weligii qofka iscadriye ma weligii cadar isku mushmin waa zaahid marka mar hadduu wax weeyaan aanu iscadrin وساهد وضارتي آخرة وحويان هولا نوعاس مركا أرمها نوعاس إناني مشروعين بحديث كينوت المامية وحا إلهي أكوب النية كرة حيث لكن اسكوف النيسي انت إلهي كوب النية وحاراننا إلهي سبحانه وتعالى وقوى حويان ديرو وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت وحيتر يا رسول الله رسولك إلهي انكح وحد قرستا رسولك وإله الله يسا رسولك إلهي وحد قرستا أختي ولا شيء ابنة أبي سفيان أو إنا أبو سفيان فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو تحبين ذلك وما تعيشها إن لقولك قرسدو وقبرك لو حوين أن قرسدو وتعيشها أو لبا ولا شيء أن قرسدو فقلت نعم ها وأن شعلها إن ولا شيء إلى قرسدو رسولك إلهي مركاسي عضيسي صوابت لست لك بمخلية رسولك إلهي مثل إيكا دين يمئه يعني مد كوكو أيسو خالكو أمئه كل بعد كلا أيد قرسنا إذا رسولك إلهي وأحب من شاركني عدا أقول شعلها إن أي إلو ذاك في خير وناك أختي ولا شيء وأن معها رسولك إياه وحويا يا وحاصل معها إن أي إلو ذاك توحن أقول شعلها ولا شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول إن ذلك لا يحل لي تاسي إيما بنانة وحلال إيماها لا بها بلوضة ولا لا إن نقول كوضة كل مياه إيما بنانة حديث كلام ينصص عدم مسألة المامية قالت وحيتري صحابيتي أم حبيبة فإنا نحدث رسولك إلهي وحل النوغة والرمي أنك تريد إن أدونيسو أن تنكح إن أدقورستو بنت أبي سلمة كبدا وحويا أم سلمة أيضا شيء أبو سلمة نقودري أن كبدا أما إن أنتاس أم سلمة أيضا شيء أم سلمة أرقبتو إن أنت إذا إن دونيسو قور إن وحويا أي رسولك إلهي ولا نشي قال النبي عليه الصلاة والسلام بنت أم سلمة ما أم سلمة وأنقبوا ما إن أنت هذا أيان هذا الهيا قلت نعم ها رسولك الله ودي كتري كتين بسيطة تريو ولا سرد أحمر مريا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها إن أنتاسي لو لم تكن ربيبتي هدي أنا أهان لهين تانا أنوغ برباري وفي حجري أما حجري وقوري جيجا كسو كرتي ويعني هو يدد أنقبوا إنن هدي أنا يهان لهين قريقا كسو كرتي وهو يدد أنقبو ما حلت لي حتى إيمي بناناتين إنها إنن تاسي لبنة أخي من الرضاعة وإننتي walaalkay uu dhalay walaalkay oo xagga naaska aanu ka walaaloway oo waxa weeyaan dhinacaan walaal ka noqonay ayaa waxa weeyaan yani ayaa dhalay ardacatni waxa inuujisay
ardacatnii waxa inuujisay aniga wa abaa salamata iyo aabbaheedu abu salama ah huwaybatu gabadhii huwayba la odhan jiray falaa tacridna calaya a ii soo bandhigina banaatikunna hablihiinna walaa akhawaatikunna iyo walaaladiin midnaba a ii soo bandhigina waayo dee iima bannaaneen yacni xaasaska nebiga calayhi salaatu wasalaam in hablahooda nebigu guursado ama walaalahooda nebigu guursado ma bannaana xadiidkan iyo xadiiska soo socda labada xadiis waxay tilmaamayaan almuxaramaatu fi nikaax dumarka xaaraanta ay tahay ninka ay ka xaaraan tahay in uu guursado marka haraynu marba waxayna soo mareenoo dumarka waxaynu ku tilmaannay inay yihiin imisa dumarka muxaramaadka la yidhahda ee xaaraanta ahee marnaba in la guursado aanay bannaanayn waa 18 dumara waa 7 ka imanaya xagga nasabka oo waa 7 ilaahay ku sheegay fi suurati an-nisa ummahaatukum hurrimat alaykum ummahaatukum wa banaatukum wa akhawaatukum wa ammaatukum wa khalaatukum wa banaatul akhi wa banaatul ukht waxa weeyaan waa hooyadii iyo habaryartii iyo eedadii ummahaatukum wa banaatukum iyo hablihiinni wa akhawaatukum iyo walaaladiin iyo hablihii aad u haydeen abtiga iyo hablaha aad u haydeen adeerka dumarkaas 7 ahi ma bannaano qofku inuu waxweeye u guursado xagga nasabka iyo xagga abtirsinka waxa kaloo aanay ka bannaanayn 7 laftigoodu xagga radaaca iyo naaska oo haddii tusaale ahaan ay jirto tusaale ahaan maalan hooyo xagga naaska ah oo qofkii tusaale ahaan maalan uu naaskeedu qofku uu shaqay isagoo yar oo 2 sano aan gaadhin ayaa naaskeedu qofku uu shaqa kitaab radaac way noo soo socdaa insha Allah azza wa jalla halkaas aynu ku tafsiilin doonaa walaal qofkii waxa uu yeelanayaa xagga naaska ah habaryar xagga naaska eedda xagga naaska ah waxyaalahaas oo dhan waxay noqonayaan iyaguna muxaram bay noqonayaan qofku inuu guursado waa 14 waa 7 afarna waxay xaaraan ka noqonayaan xagga xididka waa kan hadda xadiisku uu tilmaamayo waa ummu zawjati iyo bintu zawjati waa xaaskaaga hooyadeed iyo xaaskaaga inanta ay dhashay nin kale ay u soo dhashay labaduba xaaraan bay noqonayaan waxaa kaloo xaaraan noqonaya zawjatu al-abi iyo zawjatu al-ibni aabbaha tusaale ahaan maalan aayadaa aabbe iyo inankaagu inanta uu qabo iyo zawjada ama xaaska u ah ama uu guursaday xataa haddii ay kala tagaan xataa haddii la kala tago arrinta noocaas waxay noqonaysaa qofkaasi waa maxram ayuu ku yahay oo waa xaaraan qofkaasi inuu waxweeye marnaba uu guursado waxaa jira dumar ilaahay subxaana wa tacaala uu xaaraantinimeeyey un jamcinta la kulminayo waa sida labada hablood ee maalan walaalaha ah iyo inan iyo eedadeed iyo inan iyo habaryarteed waxay idhaahdeen ahlulcilmigu waxa qaacido ah 2 hablood oo kasta oo haddii midkood ay noqoto nin ta kale in ay guursataa aanay u bannaanayn oo nasabnimo aanay ugu bannaanayn inay guursato in la jamciyaana ma bannaano 2 hablood oo kasta oo haddii midkood nin ay noqon lahayd kaa ninka noqday ta kale aanu guursan lahayn oo ay xaaraan noqon lahayd inuu guursado nasabka dartii abtirsin dartii waxay noqonaysaa labadoodaana in guur lagu kulmiya in aanay bannaanayn oo maalan hadda 2 hablood ee walaalaha ah haddii midkood nin uu noqdo ta kalena inan ay noqoto dee inay isguursadaan ma bannaano waayo waa walaalo inan iyo eedadeed iyaguna waa saas leeg inan iyo habaryarteed iyaduna waa saas leeg inan iyo hooyadeed iyaguna waa saas leeg marka waxay yidhahdaan kullu yacni 2 hablood oo kasta oo low jacalnaa ixdaahumaa dakaran midkood nin haddii aanu ka dhigno maa xalla an yatazawaja alukhraa ta kale inuu guursado aanay u bannaanayn liajli nasab fayaxrumu aljamcu baynahumaa in markaa la jamciya labadoodaas waxay noqonaysaa xaaraan qisada marka halkan ka dhacday gabadha umu xabiib radiallahu canha ardaaha waxay la dhalatay ayo saxaabigii xasuusiya saxaabiga ay walaalahayeen mucaawiya ibn abi sufyaan mucaawiya iyo umu xabiiba waa walaalo umu xabiib radiallahu canha ardaaha rasuulka ilahi inta u timi tiri rasuulka ilaahi waxaan doonayaa in walaashay aad ila guursato rasuulku uu yaabay calayhi salaatu wasalaam majoritiga dumarka waxaa la yaqaanaa inay waxaweye ay ka masayraan in lala guursado markii dambe waxay caddaysay sababtii waxay tiri lastu laka bimukhliya rasuulka ilaahay ow kolba la ii kaadayn maayo rasuulka ilaahay baa tahay kolba waxa weeyaan dumar badan waad guursan doontaa marka kolba haddaad intaad cid guursanayso rasuulka ilaahay walaashay khayrka iyo wanaagga marka jazaa allahu khayran iyadu dee walaasheed waxtar bay islahayd qofkuna inuu waxa weeye cidda khayrka ula jeceliya cidda ugu dhow waa inay noqotaa waxa weye cidda dadka ugu dhow waxaa la yidhahdaa walaalkii wax taray oo ka qiimo badan ma jiro nebi muuse wajcal lii wasiiran min ahli haaruuna akhi walaalkiiba ilaahay wuxuu uga baryay inuu noqdo nebi
markaasaa ilaahay subxana watacaala ka dhiga oo wasiirkiisii uu ka dhiga haaruuna akhi iyaduna waxay istiri walaashaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam kula guursaday nebigu calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi inaanay bannaanayn buu tilmaamay waayo laba hablood oo walaalaa guur laguma kulmin karo markaasaa arrin kale ka warrantay waxay tiri rasuulka ilaahayow umu salama oo aad qabto ayaa waxaa la nooga warramay inanteeda zaynab inaad hadal hayso inaad guursato nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay laba siyoodba inaanay ku bannaanayn inaan guursado horta waa rabiibo waa bintu zawja oo waxa weeyaan xaaska inanta ay dhashay nin kale ay u soo dhashay marnaba kuma bannaana inaad guursato marnaba kuma bannaana in aad guursato waxaa kale oo nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku diiday wuxuu yidhi walaalkay baa dhalay oo xagga naaska aanu ka walaalownay oo aabbaheed abuu salama iyo anigu huwayba ayaana wada jaqsiisay naas marka waa bintu akhi min alradaaca marka haddii markaa sidaa ay tahay oo walaalkay oo waxa weeyaan xagga naaska aanu ka walaalownay uu dhalayna arrinta noocaas waxay noqonaysaa mid aanay ii bannaanayn in wax weeyaan aan guursado marka wuxuu noqonayaa adeer buu noqonayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xagga naaska ah waa cammun min alradaaca waa adeer xagga naaska ah ayuu noqonayaa inantaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau tilmaamay laa tacridna calaya banaatikunna walaa akhawaatikunna hablihiinna iyo walaaladiin midnaba a ii soo bandhigina iima bannaaneen haddaba huwayba maxay ahayd qaala curwa wuxuu yidhi wa huwaybatu mawlaatu liabi lahabin huwaybo waa addoon yar oo uu lahaan jiray abulahab kaana abulahabin actaqaha abulahab baa xoreeyey fa ardacat الnabiya sala allahu calayh wasalam nebiga ayay markaa jaqsiisa falamaa maata abulahabin markii abulahab uu dhintay uriyahu abulahab baa la tusiyey bacdu ahlihi ehelkiisa qaar ayaa ku riyooday bishari xiibatin xaalad lagu sugnaado tii ugu xumaa isagoo uu ku sugan yahay abulahab qaala lahu markaasaa ehelkaasi waxay ku idhahdeen abulahab maada laqiita maxaad la kulantay abulahabow qaala abulahabin wuxuu yidhi lam alqa bacdakum khayran saan idinka tegay khayr iyo wanaag ma arag hayra annii suqiitu fii haadihi allayle faryaradaas ayaa maalin la iga waraabiyey bicitaaqatii xorayntaan xoreeyey huwaybata gabadha huwayba la yidhaahda markii dambe nebiga jaqsiisay calayhi salaatu wasalaam inaan xoreeyey intaasaan waxa aan ku helay inaan fartaydaas faryaradayda in yaro biyo ah aan ku cabo oo laygu waraabiyo alxiibatu alxaalatu waa xaaladda weeya bikasri ilxaa calaa kulli xaal huwayba allahu aclam warkeeda ma soo islaamta mise may soo islaamin lama garanayo warkan wax cidda sheegta waa curwa waa war munqatica weeyaan oo maalan mursal ah oo aan wax weeyaan xidhiidhsanayn curwana dee lamuu joogin oo waqtigaas iyo xaaladda uu ka warramayo warkana nebigu ma sheegin calayhi salaatu wasalaam ee ninkaa taabiciga ah baa warkaa sheegay warkaasina waxa uu tilmaamayaa in ninkaa gaalka abulahab ilaahay subxaana watacaala maalin uu in yaro biyo ah ilaahay uu waraabsiiyey oo ama ilaahay subxana watacaala uu waraabiyey sababta loo waraabiyena ay tahay gabadhaa huwayba oo uu xoreeyey calaa kulli xaal usuusha diinta aynu ku hayno qofka gaalkae gaalnimo ku dhinta marnaba camalkiisii adduunka uu ku sameeyey inaanu marnaba waxtar qofka inaanu u lahayn asalku waa sidaas laakiin allahu aclam xaaladdan ma dhacday mise may dhicin allahu aclam ilahay ba subxana watacaala cilmi aqoon u leh jala jalaaluhu wataqadas ismuhu wacadamatuh laakiinuun war sugan oo nebiga aynu ka hayno calayhi salaatu wasalaam ma aha laakiinuun waa waxyaalaha la sheego huwayba addoontaa uu lahaan jiray abulahab marka waxa la yidhahdaa wuxuu ku farxay markii nebigu dhashay ee la yidhi walaalkaa inan baa u dhashay moxamed la yidhahdo dana farxaddii buu dadna yidhi waan xoreeyey dabeedna markaasaa intaa yare farxaddaa uu ku farxay baa dabeedna uu wax ku helay oo intaa yar waxa weeyaan in yaro biyaa wax weeye lagu waraabiyey ayaa markaa qisadu ay tilmaamaysaa laakiin allahu aclam inay sugan tahay inaanay sugnayn وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحوري لا يجمع لما كلميو بين المرأة وعمتها قبل يددد قور لقما كلميو ولا بين المرأة وخالتها قبل يهبرير تيدنا قور لقما كلميو هراي نصو شيغني وهراي نصو مرت وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحوري إنها حق الشروط sababta oo maxay guur aan lagu kulminayn laba hablood walaala ah iyo inan iyo eedadeed iyo inan iyo habaryarteed waayo dadka waxa weeyaan dumarka la isla qabo in badan waxa dhacda inay yaani ay isximiyaan oo xinxin iyo hawlo noocaasa iyo cadaawad iyo ma garanaysaa ay isla colaytamaan marka sharcigu wax kasta oo keenaya dadku inay isku dhacaan ama dadku ay ma garanaysaa waxa weeyaan ay isnacaan sharcigu waa diiday oo waxa weeyaan arrinta noocaas marka dadkii haatan tolka ahaa inaan iyagu hoos isugu noqon oo iyagu aanay hoos isu nicin oo xasad iyo cadaawad iyo colaad aanay dhexdooda aanay marin ayaa sharcigu u diiday oo wax weeyaa meesha uu ka saaray وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحور إنها حق الشروط
shardi la oofiyo waxa u xaq badan inna axaqa shuruudi shuruudda waxa ugu xaqnimo badan an tuufuu bihi inaad oofisaan ma staxlaltum bihi alfuruuja shardiyada aad ku xalaashateen farjiyada yacni dumarka aad ku bannaysateen dumarka shardiyada aad ku guursateen dhammaystira oo oofiya baa nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam shuruudda ninka iyo gabadhu ay wada dhiganayaan in la oofiyo ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay oo ninku maalan hadduu shardisto gabadha uu guursanaya inay bikrad noqoto shardigaa waa in wax weeye loo oofiyaa haddii marka hadhow ay ka soo baxdo meeshii waxaan ahayn wuxuu khiyaar u leeyahy guurkii inuu sii wado iyo inuu fasakho khiyaar iyo wax weeye door buu leeyahy kadalika aydan hadduu shardisto shardi kaloo maalan nasabka ama abtirsinka ama waxyaalaha noocaasa ku saabsan hadduu shardisto ina axaqa shuruud nabigu wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam an tuufuu inaad oofisaan waxaa ugu mudnaasha badan shuruudda aad ku xalaashateen dumarka lafsigooda shuruudda ay dhiganayaan haddii ninkii tusaale ahaan maanta ay la dhigtaan maalan meesha ay degayso ay tiraado guri noocayo noocaas oo sidaa iyo sidaasa inaad dejiso ayaan doonaya oo uu ka aqbalo uu ka yeelo almuslimuuna calaa shuruudihim muslimiintu waxay ku shuruutameen lagama bixi karo kadalika aydan haddii meherka ay tiraahdo ii kordhi oo meher culus ay qabsato ninkuna uu ka yeelo ina axaqa shuruudi shardiga haddaba adeerow adaa isku galay meelaad ka noqoto ma joogtid marka markii hore ayaad isku yeeshay marka dadkeen waxay sheegaan oo ah marka horena been ku soo xerogelay marka dambena run ku dhaq wax jira maaha adeerow waa arrin khatara weeyaan waa ka nabigeenu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ina axaqa shuruudda waxa ugu xaqnimo badan in la oofiyo waa shuruudda zawaajka ama nikaaxa ah shuruudaha qaar culammadu way isku hayaan raxmatullaahi calayhim harana waynu u soo marnay haddii maalan gabadhii ay shardisato ninku inaanu la guursan oo kale haddii ay shardisato maalan tusaale ahaan maalan yani in aanu la safrin oo kale ama inaanu ka safrin oo kale adugu arrimaha noocaas ah muqtada alcaqdi ama caqadkii daakhilkiisii aan waxba yeelaynin oo gabadhii aan dhib aan ku haynin arrinta noocaasa gabadhu ma shardisan kartaa mise ma shardisan karto xaq ma u leedahay mise xaq uma laha culamadu raxmatullahi calayhim way isku hayaan caalimka aan idinku idhi waa caalimka ugu badan ee shuruudda ansixiya ama socodsiiya waa caalimkee alimaam axmed ibnu xambal isagoo xadiidkaas sidiisuu sheekhu u qaatay raxmatullahi calayh aya shardi oo gabadhu ay dhigato hadday tiraahdo haddaba ay la gursan oo tiraahdo yeelay oo shardigaa laguu qoro caqadka dhexdiisa shardigaa lagu qoro hadhow adaa bad ku jiradi hadhow shaaficiya wallahi minhaaj baan ka soo akhriyey iyo awlaa noocaas ma soconayso sheekh cinda alimaam axmed ibn xambal raxmatullahi calayh alimaam axmed wuxuu ku socodsiiyey isagu shuruuddaasoo dhan in wax weeye la socodsiinayo a'immada kale haa way jirtaa sida maalan abu xaniifa maalan alimaam shaafici arrimaha noocaasa iyagu inaanay maalan shuruudaha noocaas weliba isagu shaafici aba ugu sii darnaaday isagu wuxuu shuruuddaas ma soconayso shardiga noocaasa haddaba hadday tiraahdo haddaba ay la guursan oo madaxa iska ira ruxo oo dadna hadhow isagoo waxyaalo kala wadwado hadhow la maqlo wuxuu ku leeyahay hadhow dee intuu yara beenta uu sheegay iyo hawsha noocaasee hadduu markii hore sii ogaayo oo barnaamijka markii dambe uu ka baxay khatarta ay leedahay mooyaane laakiin guurkii waxba yeeli mayso caqadkii waxba yeeli mayso arrinta noocaasa culamada muslimiintu raxmatullahi calayhim sidaasay u badan yihiin shardiga noocaasoo ah gabadhu inay tiraahdo haddaba ay la guursan haddaad ila guursato warqadaydi waa inaad halkaa dhigtaa shardiga noocaasa in aanu ansaxaynin baa culamada muslimiintu ay u badan yihiin laakiin axmed ibn xambal caalimka la yidhahda ka mid a culamada muslimiintu raxmatullahi calayhi isagu wuxuu shardigaasi waa shardi saxiixa waana shardi ansaxaya waana shardi ay tahay sideeda in loo oofiyo runtiina almuslimuuna calaa shuruudihim inantaa muslimadda ah ee waxa weeyaan haddaba shardiga aad ka yeeshay hadhow shardigaa inaad kaga baxdo sheekhow iska ilaali وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار النبي عليه الصلاة والسلام وحو الرابي قورك الله يقانو الشغار والشغاركم حوها والشغار أن يزوج الرجل ابنته وإن ننكو إننتيس أعيد أقوريو على أن يزوجه ابنته ككالنا إننتيس أقوريو وليس بينهما صداق وح أبيرات وح مهرنا دحيو عن أولين وإن القف كتراضه ولا شيء يقوري أنه ولا شيء ينكو قورينيا وح مهرو دحدينيا لما تشيرانا مد كستبطة كلا مهر بيوتا hawsha noocaasi shiqaar baa la yidhahdaa ma ansaxayso hawsha noocaasi ma ansaxayso inantayda aan kuu guuriyo adna inantaada ii guuri wax meheroo dhexdeena yaalla ma jira mid walba kala meher bay u tahay ma ansaxayso taasina shiqaar baa la yidhahdaa waa arrin muxarama oo aan bannaanayn weeyaan waxaana soo gelaya dhammaan dumarka mas-uulka laga yahay oo dhan walaasha maalan
iyo inantaada iyo cid kale haddii mas'uul aad ka tahay oo inan kale muslimada ay maalan adigu aad maalan inaad tihiin ilmaadeer haddii cid weli kaa dhow aanu jirin adiguna aad wax weeyaan aad guurinayso inaad nin u guuriso oo dabeedna aad tiraahdo wax weeyaan waa inaad adiguna wax soo wareejisaa hawsha noocaas laga yeeli maayo laakiin ka waran haddii inantaada aad u guuriso isna inantiisa uu kuu guuriyo meherna aad ku guursataan adna meher baad ku guursatay isna meher buu ku guursaday waa bannaanta waa ansaxaysaa walaashaa buu guursaday adna walaashii baad guursatay meherna waa ku guursaday qof walba wuxuu ku guursaday ta kale meher dhammaystiran oo kaamila hawshaas waa ansaxaysaa laakiin shiqaarku wuxuu ka mid ahaa dhaqamada jaahiliyadu ay yaqaanaanoo waa in hablaha la isweydaarsado wax meherna dhexdooda aan wax weeye la keenin marka shiqaar waxaa laga soo qaatay min shaqara ay khala ashaaqirku waa waxa bannaan weeyaan almakaanu shaaqiru waa booska bannaan marka guurkan waxaa shiqaar lagu bixiyey liannahu bilaa sadaaq waa bilaa meher marka meherkii baa meesha ka baxay tafsiir kale waa lagu fasiray oo min ashiqaar bimacna rafca alkalbu laakiin calaa kulli xaal kana dhow in la yidhahdo shiqaar waxa laga keenay min alkhuluwi waa madhnaashiyaha marka hadda meel hadda waxaad ku arkaysaa funduqun hada alfunduq fiihi ghurfatun shaaqira qol bannaan ayaa ku jira ghurfa shaaqira waa qol bannaan weeyaan marka shaaqirku waa waxa bannaan weeyaan marka meeshaas wax meher ma yaalan waa meel bannaan marka وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة النبي عليه الصلاة والسلام وحو الرهبي كور كالله يقانو نكاح المتعة كور كالراحي سقاه يوم خيبر مالك خيبر بن النبي قديد عليه الصلاة والسلام وعن لحوم الحمر الأهلية يوين وحويان هيلبك ضميرها وحويان ضد الشوقة يجانا إن لعنو هيلبك يد النبي وحارن تنمي عليه الصلاة والسلام نكاح أنكح هذا كله شرع وحارن تنمي حكم نكاح المتعة وما هي وين قبل جورسته قبل أنا أتكو جورسته وقت جارة صالون حتكو يشيسن أسبوع وقت قبيسان مسلمات ده وحتكو يشين إنسان إن أسبوع وده شوكتان أما بالكلي وده شوكتان أما صنّت ده هدونا أتكك لا تكتان عقد كي كتر تابع نكاح المتعة ولا هذا نكاح المتعة وحيالها عجيب كابو كتر في الشريعة حتى إمام الشافعي وله هذا تصال الله بعض ملا لبق جورنا ولا حلالي لبق جورنا ولا حرام تنمي laba goorna waa la xalaaleeyay laba goorna waa la xaaraantinimay marka waa nikaaxan banaanayn oo muharram ah markii dambana xaaraantinimeyntii baa ugu dambeysay ilaa yawm alqiyaamana waa xaaraan muslimiintuna kuwooda ahlu sunniga way isku waafaqsan yihiin in nikaaxaas uu xaaraan yahay shiicadu ilaa maanta iska sii wadwadataa waxeedii mutacadii halkii bay u taagantay marka waa nikaaxan banaanayn culamada muslimiintuna ay ku kulansan yihiin waa ijmaac waa la isku waafaqsan yahay ahlu sunna oo dhan nikaaxaas inaanu bannaanayn guurkaas inaanu bannaanayn waa guurka qofku gabadh intuu guursado uu kula heshiinayo maalmo gaara bil sanad 2 sano 3 sano 4 sano waxay ahlu cilmigu isweydiiyaan mas'alo haddii qof tusaale ahaan maalan uu safar uu galo safarkaasi ama noqdo safar ganacsi ama safar waxbarasho aan noqdo dabeedna qofkii tusaale ahaan maalan ardayda jaamacadaha oo kale jaamacaddaaba qofkii uu tegeyba jaamacadda marka uu tegey ayaa wuxuu guursaday inan muslimada inantaa muslimadda ah guurka ay ku heshiiyeen waa guur saxiixa oo dhammaystiran oo kaamil ah laakiin niyadda wuxuu ku qarsanayaa oo aanu se muujisan ardaygan meesha maraya in afartaadaa sane jaamacaddu markay kuu dhammaato inantaad iska fasaxdo inantaa muslimadda ah aad iska sii dayso niyaddu laakiin ku qarsanaya wax uu qoray ama uu cid u sheegay ama uu gabadha kula heshiiyey ma aha arrinta noocaas ma bannaantahay mise ma bannaana culimmadu raxmatullaahi calayhim way tilmaamaan ilaa 3 qowl meelahaas ayaa ku sugan in ay bannaan tahay oo ay jaa'is tahay baa culimmada muslimiintu ay u badan yihiin waayo qofkani dee niyaddu wax ku haystaa berri kamaan uu isbedeli karaa haddii ilaahay ubad ka siiyo oo uu tarmo oo gabadhii ay isfahmaan oo waxa weeyaan wax laga yaabo hadhowba intii yaradee niyadda uu ku hayay ee wasaawisu ashaytaankii in ilaahay subxaana wa tacaala uu ka kaxeeyaba oo hadhow waxa weeyaan xaas caadi ay u noqoto marka maadaama waxaani wax caqadkii ku dhex jiro oo caqadkii lagu dhex guntay aanay ahayn ee ay tahay ni wallahi 4 sano jaacad markay ku dhammaato haddaad iska sii dayso oo gabadhan waxay ku heshiiyeen aanay ahayn arrinta noocaas inay bannaan tahay baa culamada muslimiintu ay u badan yihiin culamada qaarkood oo diiday way jiraan culamada qaarkood oo yidhi waa makruuh waa laga fiican way jiraan laakiin jumhuurku waxay ku sugan yihiin inay bannaan tahay nikaaxul mutcana aanay ahayn nikaaxul mutca wuxuu noqonayaa waa marka caqadka lagu galo waxaynu isqabaynaa haddaba bil waxaynu isqabaynaa 4 sano jaamacaddaan dhiganayo hadhowna xor baa tahay waa ku sii daayey yaa iyo wixii la mid ah وعن أبي هريرة رضي الله عنه وحكى له حديث كوديدي الحمر الأهلية وضميرضي وحويان
dad la joog ahaa iyagu inay xaaraan yihiin can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalam qaala rasuulku wuxuu uhi laa tunkaxu alayimu gabadhii carmalka ahayd lama guurin karo xataa tusta'mar ilaa ay amar bixinayso walaa tunkaxu albikru inantii bikradda ahaydna lama guurin karo xataa tusta'dan ilaa inta ay idmayso qaaluu waxay dhahan ya rasuula rasuulka ilahi kayfa idnuhaa seebay u idmaysaa qaala nebigu wuxu uhi alayhi salatu wasalaam an taskuta waa inay iska aamusto xadiidkana wuxuu tilmaamayaa qaabka maalan ay tahay weligu in uu u guuriyo hablaha dumarkii waxaa loo qaybiyey gabadh carmal ah oo nin hore soo martay iyo gabadh aan carmal ahayn oo bikrad ah gabadha carmalkee nin hore soo martay culamada muslimiintu way isku waafaqsan yihin raxmatullaahi calayhim gabadha nebigu siduu yihi alayhi salaatu wasalaam xataa tusta'mar in iyada amarkeeda la sugayo oo war cad ay odhanayso ama ninkaa waan doonaya ama ma doonayo ama ii guuriya ama ii guurinina maadaama iyadu ay tahay gabadh carmal oo nin hore soo martay oo ragga soo tijaabisay oo waxweye khibrad iyo waay aragnimo hore leh iyadu way ka duwanaatay gabadha bikrad ahayd inantii bikrad ahayd nebigu wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam xataa tusta'dan iyada waa laga idan qaadayana oo seebaa looga idan qaadanaya nebigu wuxu uhi alayhi salatu wasalaam waa inay aamusto maadaama xishoodku uu ku badan yahay hadda iska aamusto marka la yidhahdo waxa weeyaan hebel baa magacaaga ama noo soo gudbiyey oo hebel oo waad wada hadasheen haa ka warran haddii lagu guuriyo ay aamusto macnaa hada waxay tahay way fasaxda ayib waxaa ku sugan jamaalu lislaam wanaagga islaamku uu leeyahay baa ku sugan oo hablaha inantaa asturan muxajabada ah ee mukhadarada ee guriga joogta ee waxa weeyaan maxay ahayd rag hore aan arag idinkeedii bal qaabka sharcigu u fududeeyey oo la yidhi waa inay aamustaa un hadday aamusto iyadiina loo sheego la yidhahdo haddaba aamuskaasi waa raalli ahaansho weeyaan sidaas in waxa weeyaan guurkeedii u noqonayo waxaa kale oo ku sugan weligu inuu muhiim yahay oo guurka gabadhu inaanay isguurin karin ama guur hore soo marto ama yaanay soo marin gabadhu in aanay iyadu ismeherin karin oo isguurin karin ee cidda guurin kartaa ee fasixi kartaa uu yahay weli ayaa ku sugan idan mas-uuliyadda ay xambaarsan yihiin awliyaa ulumuurku waa inay ogaadaan gabadha ilaahay subxana watacaala mas-uuliyaddeeda uu kuu dhiibay ama aabbe noqo ama adeer u noqo ama walaala noqo cidda ugu dhow ee meherinaysa un adugu haddaad tahay cidda ugu dhow ee guurinaysaan ujeedaa waxa ay noqonaysaa in aad xilkaada inaad ogaatid ilahay subxana watacala uu ku saaray cidda marba inanta soo doontana inaad cidda ugu wanaagsan ee diin ahaan iyo akhlaaq ahaan ugu fiican inanta danteeda adigoo eegaya adigu dantaada aan eeganaynin xaalaadka qaarkood oo dee hablaha qaarkood ay ku sheegayaan waxaa ka mid a aabbahay ma ogolo inuu cid isiiyo sababtu waa maxay waa shaqeeyaayo markaa dee lacagtan aabbahay baa iska shaqaysto oo aabbahay baa ay isaga dhacdaa oo markaa odaygu markaa ma doonayo waxa yar iska qabo uu qaadanayo intaa yar isugu beegan in waxa weeyaan nin ka kala tuuro oo wixiiba afka u dhigto oo hadduu doono shaqadaba kala tuuro oo hawsha noocaasa odaygu diyaaru maaha marka wallaahi anna dee dhib badan baan dareemayaa mustaqbal baa iga wax weeyaan dambeeya wax badan waxaan doonayaa carruur ubad guri baan doonayaa inaan dhisto laakiin aabbahay cid kastoo ii timaada wuxuu ku leeyahay mushkila ku sugan laa maaha caadi caadi baad moodday maaha caadi waxbaa siiya wax siiyana ma jiraane intaa yare shilimaantaa yare la qaadanayo buu odaygu wallaahi waa wax weeye xisaab baa dambaysa cinda allahi caza wajal gabadha inantaa mas-uuliyaddeeda ilaahay uu kuu dhiibay danteeda waa inaad ka shaqaysaa yada waxa danta u ah cidda aslaxa u ah cidda kufka u ah cidda u qalanta cidda u dhiganta cidda munaasibka u ah waxa weye haddii kale mas-uuliyaddii kamaad soo bixin kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati ilaahay subxana watacala waa kaala xisaabtamaya aakhira mas-uuliyaddaas hablaha ma la qasbi karaa su-aasha ka jawaaba hablaha guur ma lagu qasbi karaa ma la odhan karaa waxa weeyaan aabe ducaya habaar aad baa loo isticmaalaa soo maaha aad baa loo isticmaalaayo waalidiintu inay waxa weeyaan hablaha ducaya habaar la yidhaahdo runtii arrinta noocaasa way jirtaa inantu horta hadday guur hore soo marto inaan la qasbi karin culimmadu isku waafaqsan yihin laakiin inantii bikradda ahayd inanta bikradda lafteeda haddii mumayse aanay ahayn oo 9 sano ay ka yar tahay iyadana in cid la siin karo waa la isku waafaqsan yihin inantii yareed 6 jir 5 jir aad cid iska siisay kufi laakiin u ah inaad bixin karto iyadana waa la isku waafaqsan yahin oo caaisha aabaheed wuxuu bixiyay 6 jira ayuu siiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam laakiin nabigu wuxuu la aqal galay markii weynaatay ay qaan gaadhay inan bikrad ah oo guur hore aan soo marin oo baaliqad ah oo qaangaadh ah oo 9 sano iyo wax ka badan jirta guur ma lagu qasbi karaa abu xaniifa raxmatullaahi calayh wuxuu leeyahay maya guur laguma qasbi karo waa madhab abu xaniifa sheekhu kii shaaficiga xaggaad u dib dhigta shaaficiyada iyo jamaahiirta kale culimmadu raxmatullaahi calayhim waxay u badan yihiin haa cidda qasbaysa hadduu yahay aabbe ama awow haa waa la qasbi karaa
weliba si gaara shaaficiyadu ay u tansiisiyeen oo cid waa loo guurin karaa laakiin adiladu waxay xoojinaysaa dhinaca madhabka abu xaniifa raxmatullaahi calayh oo inanta bikradda ah ee baaliqadda ah ee qaangaadhka ah in aan lagu qasbi karin nin aanay doonaynin sidaasaa axaadiistu ay xoojinaysaa sidaasaana runtii xagga marka la eego caqliga iyo marka la eego tusaale ahaan waxani waa guri dhan oo waxa weeyaan aynu dhisayno weeyaan gurigaa la dhisayo dee haddii maanta waxa weeye jujuubis iyo qasab iyo arrimo noocaasa maanta waxa weeyaan waxay keenaysaa hadhow qofki inaan waxa weeye ku niyadsanayn oo hawshaasi hawl ku qanacsan yahay hawl inaanay ahayn marka calaa kulli xaal inaan la qasbi karin madhabka alimaam abu xaniifa raxmatullahi caleyh oo saxaabad door ay qabaan ikhtiyaar sheekh alislaam ibnu taymiya ibnu lqayim raxmatullahi calayhim kaasaad moodaa xagga daliilahaan inuu xoog badan yahay أحاديث مسألة كسر رتين وجرتين نكون إن شاء الله كتاب بلوغة وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي حديث كان كدرنا كبدي رفاعة القرظي ما أتمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسولك أتمي فقالت وحيتر كنت عند رفاعة القرظي وحن لتشوغا أما واحد ترى هذا وحن لتشوغي يعني واحد قبي تشري بيتري رفاعة القرظي نكي لو نشري فطلقني نكاسو إفري فبت طلاقي ولي طلاقي جينا ودما يستري يعني صدح دي طلقات يدمي فتبسم معاك الريا فتزوجت بعده وحي تري وحان دبدي قرسدي عبد الرحمن بن الزبير بفتح الزاي زاد فتح صو الزبير يلا قام مقلن فتزوجت بعده وحان دبدي قرسدي رفاعة دبدي عبد الرحمن بن الزبير أيان قرسدي وإنما معه ننكاس وحو إسلها ياوا مثل هدبة الثوب ومرضى دعال كده من وحوين إسلها يوم أهبا أنت سوق وتي مرضى ayay tiri waa marada dacalkeeda yani nin hamad iyo shaawad arrimo noocaas nin wax isla haya maaha ninkani fatabassama rasuulullaahi sala allahu alayhi wasallam rasuulku waa dhowla cadeeyey faqaala nabigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam aturiidiina uma waxaad doonaysa an tarjici ilaa rifaaca ninkaaga rifaaca ee saddexda dalqadood ku soo furay inaad dib ugu noqoto laa ku noqon maysid nabigu yidhi alayhi salaatu wasalaam xataa taduuqii cusaylatahu ilaa malab yarihiisa aad dhadhamiso wayaduuqa cusaylataki isaguna malab yarahaaga u dhadhamiyo malabkiisa yar iyo malabkaaga yar ilaa aad isdhaafsanaysaan oo yacni jimaac iyo galmo dhammaystiran ay dhacayso hawsha noocaasi ku noqon maysid ninkii hore qaalat waxay tiri wa abu bakrin cindahu iyadoo abu bakr nabiga uu la joogo wa khaalid ibnu saciidin bilbaab saxaabiga ninkaa khaalid ibnu saciidin albaabka uu joogo yantadiru uu sugayo an yu'dana lahu in loo fasaxo fanaadaa waxaa dhawaaqay khaalid yaa abaa bakar abu bakarow ألا تسمع ميانة مقلين إلى هذه قبردني ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أكتيس وحي كشيء زمان مقلين وارقبرد أمسي أبو بكر رضي الله عنهن وارضاهن على كل حال هوشا نوحي تلمام إساء قبردن امرأة الرفاعة ونكيد الرفاعة وفري وصدح دي تلقضوت بودمي فبت طلاقي ومحي أحوري أنت طالق ثلاثا صدح بعد إيقا غفر أنت ومسايش اللود اللي يشتو هذه قفكوا إلى أنت طالق ثلاثا أنه يقع الثلاث صدح ذات القوض بين دعيان وهو مذهب جمهور الأئمة الأربعة أفرت إمام ساسي قواني وصحابة فربضان يتابعين بضن ومسألة فيها خلاف طويل جدا أوذي بسببها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رقبضان وحوين لقو حري شيلالك وحوين لقو قليين صدح ذات القوض ما هل طلقتنا من سوا صدح لكن علماء المسلمين توحيب بدين صدح ذات القوض صدح دو وصدح marka markuu ninku yiraahdo saddex baad iga furan tahay saddexdaas weyn in ay kaga furan tahay laakiin hadii hadda ay dhacdo maxkamadda sharciga in la geeyo dadna xaakimku wuxuu u arko ama qaadigu ayaa haboon talana waan bixinayaa guud oo masaa'isha talaaqa iska ilaaliya in masjid dhexdii iyo meel yaro fudud iyo maqaaxi adigoo fadhiya iyo mixraabka masaajidka adigoo ku jira iyo inta afka lagu soo dhuubo la hawl noocaas dhacday sheekho ka waran hawlaha noocaas aqliga iyo xikmaddu waxay keensanaysaa inaad iska leexiso hawl talaaq aka fatwoonina مسائش الطلاق يسفرد يوحي لمده اجعلوها في المحاكم لا تفتوها فيما بينكم وبين الناس dadka yani wax weeye loo fatwoon masaa'isha noocaas oo dadka yani wax weeye iska fudaydsan marka masaa'isha noocaas oo maxaakamta sharciga loo daayaa way wax saalan ma gabadha marka waxay tiri ninkaasi saddex dalqadood buu soo furay nin baan ka dambeeyay Cabdiraxmaan ibn Zabiir ninkaasi ay iga dambeeyay ninkaasi nin wax weyn isla haya ma aha wixiisu waa sida marada oo kale yani nin wax weeyaan hamad le ma aha marka nabigu waa qoslay alayhi salaatu wasalaam وقبضوا هذا الكيد قاب كيقول دكتي وحنا النبي يقول عليه الصلاة والسلام ها ما ننكي ورا دوني سينا دبقوا نقطة الرفاعة النبي يقول عليه الصلاة والسلام كن نقول ما يسد إلى وحويا ملب يرو جاجا ودا من أيوه أدنى ملب يرو جيس أدنى من أيوه مركا يعني معناه دوحي تهاي قبضوا مركا ننكا هرا فرصة حد القضاء إن ننكا لا يجور ستو ننكا سواء إن وجماع ما قلم وإن دعدا هذه صدق حديث القضاء أي كسر دمعتين ننكا لا أنتوا عقد ككحرة هذا مركب فرو hawsha noocaasi ninkii hore u banaanaan mayso
حتى يذوق عسيلته وتذوق عسيلتك وإن ماشى من بيرو قيل الرمية شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه مر له ويديي مجرى أو ما حكم ما يسمى بشهر العسل مجرى بالله إلى شهر العسل بشا ملبك هاوي كتابور لكن ليس شهرا واحدا قور كردن بوضع عسل بور النبي سوى عليه الصلاة والسلام حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك الزواج كله عسل بور شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كبعد النبي عليه الصلاة والسلام وحاء تلمامي إن وحويان هوشاس أنا وبنانان إلى ننكي هراء إلى أنت وحويان نين كان هذا جماع يقال مرة ما يستر أنت يدعيس هذا الصحابي هوش أي كشكتي مرهم بأمي جرته الجواب لا جواب توما عبد الرحمن الزبير بايمي مركم مغلى رسولك إلهي بلقى دعوة أرنو عينه عسى الله كان مركز سواك حيستعرر يسقوا ضلي وقرح بدنه يسقوا أوك أي النبي أوكان عليه الصلاة والسلام مركز رسولك إلهي يو كبرهم حي شكت حويك شكت سماها والله إني أنفضها نفض الأديم سيدا هرق الله وحويان looga shaqeeyaa yani wuxuu uga jeeday intuu istifaaciyo wixii laga sheegay inaanay sax ahayn ayuu tilmaamay radiyallahu anhu ardaa marka waxa ku sugan iyadoo ay tahay mar alfaada noocan in laga xishoodo haddana dantu markay keento in wax la bayaamin karo wax la cadeyn karo oo qofkii wax weeyaan uu sheegi karo ayaa ku sugan akhlaaqda saxaabada nabiga ay ku sugnaayeen xishoodka nabiga kaleey salaatu wasalaam nabigu waa dhoole cadeeyay sheekada markuu maqlay oo nabiga kaleey salaatu wasalaam saxaabiyadii ma maagin بينما صحابة قاركود أي قيليين ويرادان وما حي قبرني وح رسولك أي كشيء يسوع أكتيسة رسولك عليه الصلاة والسلام وحي وشيء يسوع ما حي مركا أخلاق النبي قلنا سيدي وأنا أكسنيت وكسوغن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الكاس أي نكوها كنينا درسي بعد العشوه ولي سيدي بقول نغندنا إن شاء الله معلق نهوشي سوء درسي كلاي قبيغن أحباس النقطة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم على اليهود الظالمين الغاصبين يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه